شنت أمنه وقد سيقط يلا أنا وحلو كل حبايبنا إذا كان يبتشات ما يصير تجري طريقة قلت والله بدل بليس وحيديك ورجال الصوت ولا فلية إذا ما سير iskaashatada gaadiidka basaska wada jir ee magaalada Burco ayaa cabasho xooggan la hortegay xarunta maamulka gobolka Togdheer waxaana ay cabashadaasi ka muujiyeen maamulka gobolka Togdheer iyo ciidamada booliska ee gobolka Togdheer iyagoo ku eedeeyay inay tahli kari waayeen kala xadeynta iyo habsami u socodka shaqada gaadiidka tigaha iyo basaska oo muddo dheer soo jiitamaysay qaar ka mid ah darawallada gaadiidka basaska ee wada jir ayaa ku baaqay in arrintaasi si weyn wax looga qabto waxaana ay fariin u direen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland iyo madaxweynaha Somaliland wana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya gaadiidkii dadweynaha magaalada anaga gaadiidkii dadweynaha waqti dhaxdaas waxa noogu yimi baala yar bajaaj la yiraahdo baalaha bajaajka la yiraahdo markay yimaadeen xaafadahan ka shaqeyn jiray galeen xaafadahan looga qaado waa gaadiid soo kordhay qaar bay naga qaadeen ala kulli xaal waxa markii dambe arrinkii galay dawladda hoose guddiga fulinta ma taqaana dawladda hoose oo maayir ku jiro waana kala xadeey annaga waxa weeyaan meel baan naga xadeey xaafad baan ugu soo hadhay wixii kale iyaga la siiyay halka markii ay marisay way ku joogi waayeen wayna soo weerareen dabadna waan ashkatoonay waxaan ashkatoonay dawladda hoose aanu tagnay maayirkaanu tagnay waraaqo soo qoray barasaabadii kala dambeeyay buu soo qoray waxa la soo saaray go'aamo guddiga nabadgelyada oo leeyahay waxa lagaga qabto ma taqaanaa baahantiga go'aanadii guddiga nabadgelyada waxa fulin waayay taliyahan cusub yiri go'aan guddiga nabadgelyada ay soo saartay uu diiday gaashaanku ku dhuftay wuxuu kuma shaqeynayo taliyaha waxaan u tagnay taliyaha guud ee ciidanka biliska jananka mushkiladana haysataan u sheegnay go'aanka uu ku shaqeyn waayay taliyaha qaybta halkan u soo magacaabay baanu tusnay wuu soo hadlay wuxuu niman baayay way camanayaan waxa weeyaan waa iskaashatada basaska ee Burco go'aanay sitaan waxaan doonayaa inaad la shaqeyso waan ku soo celinayaa oo waa ku soo diraya waan soo noqon markii aan ku soo noqonay u nimid hadalkii waxa weeyaan waxba kama weeran jananka halkiibu ka bilaab gaashaanku nagu uu nagaga sii daray markii hore laba askari iyo waxba la yarsiisin jiray meesha aan ku yar warwareegno uu boostay kuwiina wuxuu waxba idin maayo barasaabku waa madaxweynaha gobolka waxaanu qabnaa inuu la qabo barasaabku arrinka oo ay ku milaysan yihiin oo doonayaan inaanu isdillo waxa weeyaan shacabku sharciga inuu gacantiisa ku fushado maaha waxa weeyaan go'aanada waxa fuliyada ciidanka cidi markay khaldanta dawladda qabata dawladdii nimanka way naga qaban weyd haddii nimanka loogu soo diray gobolka in xasiloon darro abuuraan ma taqaana dadka isku dilaana waa wixii loogu soo diray jananka wasiirka amniga gudaha madaxweynaha waxaan leenahay arrinka soo farigeliye mar haddaan gobolkii ka quusanay mar haddii gobolkii aan waxba noogu harin saaka 8 baan halkaan nimi hareeraha inaga dhaafayaan haddana kowdii weeye waxba nagu yiraahdeen shay maxafiisyada ka shaqeysan maxaa ka soo doonaysaa waxaanu doonaynaa in arrinkaas sida ugu dhaqsaa badan leh gobolkan loo soo farigeliye nimankaas oo arrinka wax looga qabto 14 istaan oo magaalada ka jira iskaashatada wada jir ee Basleyn hal mid bay ka haysaa ay laba maalin u kala faliisato bala saabka imika jooga iyo guddigiisa kale amnigu go'aan bay loo soo saareen ay lagu kala xadeynayaan annaga iyo tigada bajaaj waata shanta amnigu waqada sayqot iyagoo on leh waxaanu kala xadeynaynaa idinka iyo bajaaj ma suurta gelin taliyaha qaybta la badalo bileys waxay waraaqo la soo qoray fuliya idima siiyay ugu bala saabkii ugu dambeeyay wuxuu lagu yiri shalayto xafiiska ma shaqaale ka tigin iga taga xafiiska maadaama ay ka tahay waxa la kala cabashada maanta uga gudbinayna wasiirka arrimaha gudaha janalka bileyska madaxweynaha qaranka waxa cabashada ay tahay amnigii gobolka ka shaqeey waa kala xadeyntii ay shanta amnigu ay mar walba waraaqo ku soo saxiixaysay halkan waxa ka hadlaya ururka iskaashatada basaska wada jir ee magaalada Burco annagoo ka cabanayna maamulka gobolka maanta gaari bajaaj ayaa nalaga siiyay awoodi xaafadda Burco annagoo haysana maanta hal xaafad baanu kaga dambeynaa xaafadaasna waa naga sii farabaxaysa inaanu dagaalano oo gobolka ceeb soo jeedina waa ka xishoonay laba go'aan baa la soo saaray go'aan oo lagu soo saaray guddiga nabadgelyada kii hore waa socon waayay mid labaad baa la soo saaray labada go'aan baa waxa socodsiin waayay kii hore ku saxiixinay oo diiday taliqeebe kii labaadna soo ku saxiixan oo ku dawaan gashan ayuu diiday
waxay dawladda Soomaaliland la jirtaa ilaa wax dhaca wax ma qabato ayaa lagu yaqaanay sida lagu yaqaanay ay tahayba waxaad muddo maamulka gobolka dacal kala keenayeen maaha markii ugu horeysay ee iskaashatada gaadiidka basaska ay sidan oo kale qayla dhaan uga diraan shaqa xumada iyo maamul xumada ka jirta istaamada ay ka baxaan basaska iyo tigaha maxamed matan gabalaax sahan TV burco